go'aansaday inay dalka dib ugu laabtaan oo 77 qof ah ayaa ka kala yimid xeryaha qaxootiga dalalka Eritrea, Suudaan badankoodna waa ilmo yaryar oo ku dhashay xeryahaas. dhanka muwaadiniinta go'aansaday inay dalkooda dib ugu laabtaan ayaa iyagu u mahadceliyay dowladda federaalka Soomaaliya dadaalka joogtada ah ee lagu bixiyay xal u helista dhibaatooyinka ku haysta xeryaha qaxootiga, iyagoona muujiyay farxadooda ku aadan in dib loogu celiyo dalkooda hooyo. kayga hooyo oo caawa aan u noqonahay ayaan caawa ku faraxsanahay. waxaa mahadda iskale Ilaahay baa iskale qaas ahaan safaaradda Soomaaliya ee dalka Qartuun ayaa iskale sagiir iyo kaysay u dhan yihiin ayaga ka qaybtaas nooga qayb galay oo aad iyo aad isku taxluujiyay inaan dalkanaga u noqono. wayna la xiriiri jireen meel kasta oo joogno ama la xiriiri jirnay oo nala hadli jireen oo telefoonyada iyo lambarada saacad walba ay naga qaban jireen oo iska kaaweynaysiin jirin. shucuurteeda wax la soo koobi karo ma ahan inkastoo aan aad u faraxsan oo aan dalkayga u noqonay. Soomaaliya waxaan kala kulmayaa malaha wanaag aan ahayn wadankayga waaye ciideyda hooyo waaye waxaan kala kulmayaa oo mushkilad ma jirto. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamuud Ibraahim Xareed oo ku magac dheer ku Kuunyo waxaan ahay dhalinyarta ka imaada dalka Eritrea kuna nooleed muddo 20 sano ka badan wax ku dhashay waxba ma dhaama hadda alxamdulillah rabbil caalamiin dad safar hore ayaa dhaqaaqay oo dalka Soomaaliya aaday oo safaaradda Soomaaliya Qartuun ku taala ay fududeysay safarkii labaad waaye hadda waxa socdo alxamdulillah rabbil caalamiin markii waa u mahadcelinaynaa safaaradda boqolkiiba boqol dawladana garab weyn ay ka qaadatay qayb weyn ay ka qaadatay dawladda Ibraahim Xaaji Yuusuf telefishinka Hon Cable magaalada Muqdisho.